السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فضلا هدي أدك عصب تهي كانال كان سبسكرايب لي فرو بيالكات سياد ولا سعودي دمان تحنا هالكان نسوق لي دونو كورسات ومولتي ميديا وحان شرحيني توليسكا حينوغو سو دنبيي ان بين تولكا iyo waxaa kaloo noogu soo dambeeyay dojeedka. Okay, sidoo kale maanta waxaan qaadan doonaa haddii ilaahay karaal noqdo videogeeni 8aad ama 10keeni 8aad waxaan ku qaadan doonaa text iyo waxaa kale ku qaadan doonaa path selection tool iyo direct selection tool. Okay, haddii aan text aan ku bilaabo wuxuu leeyahay horizontal iyo vertical. horizontal iyo vertical waan kala fahmi karnaa waa jiif iyo joog. qoraalkiin loo qoro qaab jiif ah iyo qaab joog ah. sidoo kale wuxuu leeyahay vertical type mask iyo horizontal type mask. vertical iyo horizontal waan fahansanahay. type mask waa macnaha sida sawir oo kale ama sawir macnaha qoraal aan la dhaqaaji karin oo hal mar ku copy gareysma oo kale waay. Okay, salaan haddii aan ku bilaabo horizontal type-ka. Okay, fartaan wax yar iska yareeyo zaid weeyaan. Okay, halkan ayaan ka yareeyaa farta markay ii noqoto falarteeda noocaas ayaan dib u jiidayaa anoo hayo left click kadibna muuska dhanka bidixda aan u sii riixayo. Okay, waxaan leeyahay markaa caaqil technology. Okay, farta wili zaaid waaye aan yareeyo. Okay, waxaan leeyahay markaa submit ama sax si uu igu aqbalo. Okay, kadib move toolka ayaan soo dooran qoraalkayga waan soo jiidan. Okay, hadda waxaan ujeednaa markaa in uu yahay qoraalkan sida saxda ah qoraalka loo qorto ama jiif oo uu yahay horizontal. And then verticalka haddii aan fiirino asna waa qaab wuxuu u qormayaa joog ah ama toosan ayuu u qormayaa. Okay, سوجدنا عاقل. Okay, كليك وسي كدب تيكين. Okay, maxaa ujeednaa markaa caaqil iyo caaqil technology. Okay, horizontal iyo vertical marka saas weeyaan. sidoo kale markaa waxaa jiray type mask oo horizontal iyo vertical kala. haddii aan fiirino verticalkiis ama horizontalkiis toos aan soo qadno then aan qoro type maskiga caaqil ndobis. Okay, kadib waxaa ujeednaa maktubka noo soo qabo qoraalka inta noo soo qabo. Okay, sorry hal mar aan ku celiyo. Okay, move toolkii soo door. move toolkii ma doorneen. then kan intiga soo dhig kadib qoraalkayga soo door kadib waxaan leeyahay caaqil. and then waxaa u sameynayaa color ameesan colorkiisa iska ahaado. Okay dheh. then alxamdulillah hadda waxaan ujeednaa marka inuu u qormay qaab oo dhibco ah inuu u qormay. then haddii aan qoraalkan meesha aan ka leexiyo waxaan dhehe hal mar colorka aan u bedelinaa control z. Okay, lama fahmayo. Okay, qaabka haddii ay idin tusiyo horizontal ama horizontal type maskiga. qaabka horizontal type maskiga haddii aan idin tusiyo asigana sidaa weeyaan caaqil
waxyar farta aan kala bixiyo si aan u wada fahanno oo waadax u noqdo colorka iska blue iska dhig okay de then tigta ku dhufo okay move toolka haddii aan taabano hadda qoraalkan meesha haddii aan ka leexino wuxuu ku celinayaa meesha marka copy qoraal copy ah aan la dhaqaaji karin meel aan la gey karin ayuu meesha ku celinayaa marka tab maskiga marka lagu leeyahay saan waaye qaab copyright ahaan ayuu u celinayaa qoraalka qaab copyright ahaan aan la dhaqaaji karin wax laga bedeli karin ayuu u reebayaa okay asli fahanaysa filayo okay waxaa ujeednaa marka qaab copy ahaan inuu reebay haddii aan kasii gudubno intaa warqadii soo fur new iskale okay then haddii aan ku xijiyo qaabka kan path tool kan iyo selection kan okay waxaa u baahan lahay waxaa sambal ku sameyno si aan u fiirino falaarahan oo path toolka ama path selection tool iyo direct selection tool okay path selection tool haddii aan fiirino path selection toolka waa in uu waxaan shaygan ii dooro then aan kula dhaqaajiyo oo ujeeda oo kula dhaqaaji karaa meesha rabo aan ku gey karaa okay waa path selection tool okay kan kale haddii aan fiiriyo direct selection tool wuxuu ii qaban doonaa shaygan mid waa ku sameyn karaa in yacni xaglaa oo kale aan kasoo jebiyo tusaale ahaan naqshad kale aan ka dhigo waa directionkiisa inaa bedelo aan wax kaba bedelo directionkiisa inaan wax ka bedelo hadba sida aan rabo ayaan u sameyn karaa marka okay sidaa filay waa isla fahnay direct select tool iyo path selection tool sidaa filayo si fiican waa loo fahmay okay hadba sida aad jeceshahay aad ka dhigan kartaa waxaa rabtid ayaa ka bedeli kartaa okay waxaa filahaa si wacan in loo fahmay labadan tool aan halkan ku sheegay fadlan haddii aad ku cusub tahay kanaalka subscribe dheh furo beelka si aad ula socotid dhammaan taxanaha halkan ka socda oo multimedia ah ama wixii ku saabsan teknolojiyada lana wadaag saaxiibkaaga oo u share gareey videogana like dheh si aad ii dhiirigelisid assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh